aadan cabdulle cismaan wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee qaaradda Afrika xilka ku wareejiya si nabad ah. aadan cabdulle cismaan aadan cadde wuxuu ku dhashay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan Diseembar sanadkii 1908. wuxuu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay Jamhuuriyadda Soomaaliya. wuxuu xilka hayay 1 Luulyo 1960 ilaa 10 Juun 1967. wuxuu waxbarashadiisa dhinaca dugsiga Quraanka iyo dugsiga hoose dhexe ku qaatay magaalada Muqdisho. wuxuu ahaa nin ganacsi ku dhex jiray intuusan ku biirin ururkii xornimo-doonka ahaa SYL Febraayo 1944, wuxuuna noqday nambarkii 10aad. waxaa isku mar la diiwaangeliyey Allah u naxariistay isaga iyo Cabdulaahi Ciise Maxamuud oo ahaa ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay Soomaaliya. sanadkii 1946 wuxuu ka mid noqday xubnihii maamulka SYL, waxaana loo doortay xogayaha SYL u qaabilsan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. sanadkii 1951 wuxuu noqday maamulihii gobolka Mudug isagoo wakiil ugu ahaa xisbiga Leegada, wuxuuna hayay xilkaasi ilaa 1953, xilligaas oo uu Talyaani u xushay inuu noqdo ku-xigeenka maamulka Talyaaniga ee loo yaqaanay Territorial Council. sanadii 1954 wuxuu aadan cadde noqday gudoomiyaha xisbiga SYL, wuxuuna hayay ilaa sanadkii 1956 bishii Febraayo. mar kale Maajo 1958 waxaa loo doortay xilka ugu sarreeya xisbiga Leegada iyo gudoomiyaha golihii lagu magacaabi jiray Somali Legislative Assembly. xilkaasi wuxuu hayay ilaa 1 Luulyo 1960 maalintii xornimada Soomaaliya. sanadii 1959 doorashooyin ka dhacay dalka ayaa waxaa loo doortay xubin ka tirsan golihii sharci dejinta Koonfurta Soomaaliya iyo gudoomiyaha golahaas. aadan cadde wuxuu noqday madaxweynihii ugu horreeyay Jamhuuriyadda Soomaaliya 1960 kadib midowgii Koonfurta iyo Waqooyiga Soomaaliya. golihii baarlamaanka oo gudoomiye ka ahaa Sheekh Bashiir ayaa ku dhawaaqay midowgii labada gobol iyo dhalashadii Jamhuuriyadda Soomaaliya. mantay urato mataanayse aan aadan cadde ayayna u doorteen inuu noqdo madaxweynihii Soomaaliya muddo 1 sano ah. 1 sano kadib waxaa si rasmi ah u noqday madaxweynaha Soomaaliya 6 sano. 1960 ilaa 1964 waxaa ra'iisul wasaare u ahaa Allah u naxariistay Cabdirashiid Cali Sharmaarke, ahaana madaxweynihii labaad ee Soomaaliya, halka 1964 ilaa 1967 oo ahayd markii uu xilka ka degayay waxaa ra'iisul wasaare u ahaa Allah u naxariistay Cabdirasaaq Xuseen. dowladdii aadan cadde waxaa ciidanka xoogga soo hogaamiyey Genaraal Daa'uud Cabdullaahi Xirsi, ahaana taliyihii ugu horreeyay ciidanka militariga Soomaaliya. aadan cabdulle wuxuu ku dadaalay dhisidda ciidanka xoogga dalka iyo raadinta gobollada gumeysiga haystay sida NFD oo markii hore Ingiriisku haystay, balse markii dambe uu raaciyay Kenya. taasi waxay sababtay in Soomaaliya ay xiriirka u jarto dalka Ingiriiska xilligaasi. madaxweyne aadan cadde wuxuu xilka ka degay sanadkii 1967 kadib doorasho kaga guuleystay Cabdirashiid Cali Sharmaarke. aadan cadde ayaa xilka si nabad ah ku wareejiyay, isagoona noqday madaxweynihii ugu horreeyay qaaradda Afrika ee xilka si nabad ah uga dego kadibna si nabad ah ku wareejiyo. Soomaaliya ayaa noqotay markaa dal dimuqraadiyad looga daydo. aadan cadde wuxuu ahaa madaxweyne daacad ah, isagoo aan haba yaraatee wax musuqmaasuq ama la xiriira lagu tuhmin, isagoo ahaa ninkii dadka oo dhammi ay aaminsanaayeen xilligaasi. burburkii kadib madaxweyne aadan cadde kama uusan cararin dalkiisii, isagoo deganaa meesha loo yaqiinay Mushaani oo u dhow Janaale oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. wuxuu aad uga murugoon jiray dhibaatada ku dhacday Soomaaliya. Allah u naxariistay madaxweyne aadan cadde ayaa ku geeriyooday magaalada Nairobi ee dalka Kenya 8 bishii Juun sanadkii 2007, waxaana lagu aasay magaalada Muqdisho 11 bishii Juun sanadkii 2007.